كل هرت waa shakhsiyaad kooban weeyaan sida ogsoontiin dalkeena xaalada ka jira waxaan arkayay ayaamahan baraha bulshada sawirro dhex wareegaya laakiin way socon wada hal bacaad lagu leeyahay noqoto marka waxaan leeyahay halkan maanta waxa ka hadlaya anigoo magacaygu yahay Saad Maxamed Salabaan ku magac dheer Saad Xayd waxaan doonayaa maanta inaan halkan shir jaraa'id ku qabto shir jaraa'idkaasoo aan doonayaa inaan kaga hadlo qodobo dhowr ah dulucdiisuna ay tahay odayaal madax dhaqameed oo ka soo jeeda beesha reer Sheekh Muuse oo shalay ka hadlay Hargeysa shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa runtii waxaan si mug iyo miisaan leh u taageersanahay una soo dhaweynayaa wasarxaafadeedka ay qabteen ama shirka jaraa'id ay qabteen haddaan isdul taago qodob ka mid ah runtii odayaashaas wax badan bay ka hadleen oo macquul ah haddaan isdul taago qodob ka mid ah runtii haddaan nahay beesha reer Sheekh Muuse muddaba beesha way kala daadsanayd marka odayaasha shir bay ku baaqeen shirka horta waan soo dhaweynayaa waana taageersanahay insha Allah billahi kariim marka xilligiisa la gaarana waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu noqdo mid mideeya beelweynta reer Muuse meel kastoo ay kala joogaan min bari ilaa galbeed taayintaasaan kaga gudbayaa odayaashaana waan mahad celinayaa qodobka labaad aan raacinaya waxa weeyaan waxaan arkayay ayaamahan baraha bulshada sawirro dhex wareegaya sawirradaasoo calan ku qoran yahay magaca Gabooye dad wareejinay baan arkayay kale horta waa shakhsiyaad kooban weeyaan waxaan doonayaa inaan iyaro sharaxaad ka bixiyo magacan Gabooye iyo calankan ay baraha bulshada wareejinayeen magaca Gabooye horta wuxuu ahaa markii hore urur buu ahaa dallad bay ahayd la doonayay in lagu mideeyo beelaha magacan sheegta taariikhdu magaceed 1994 shir Djibouti ka dhacay iyo arinta lagu soo hadal qaaday oo lagu magaranaysaa isku dayay in magaranaysaa arintaas la hirgeliyo laakiin way socon wada hal bacaad lagu leeyahay noqotay marka waxaan leeyahay beelaha magacyadan sheegta reer walba magac buu leeyahay isir bay leeyihiin meel ay ku horreeyeen bay leeyihiin annagu reer Sheekh Muuse la yiraahdaa de meel aan ku horreeyay meel aan galaan iyaan leenahay marka waxaan leeyahay kuwa sida khaldan maxay haytooy calaamada iyo magaca baraha bulshada dhex wareejinaya ka waan toobaan waxa qodobka saddexaad aan ku soo ururinayaa wuxuu yahay sida ogsoontiin dalkeena xaalada ka jira xaalada suwan abaaro sixir bar biyo la'aan kulay maanta waa u jeedaanoo jawigu sidii hore uu ka bedelan yahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay waxaan ka baryayaa guud ahaan Soomaaliland oo dhan miyi iyo magaalo inta lagu ooman yahay inta dhibaatooyin ka jiraanba ilaahay inuu u soo gargaaro xirkana ilaahay inuu madar khayr qaba ilaahay noogu shubaan ilaahay ka rajeynayaa